iyadoo maalinimadii shalay si heer sare loogu soo dhaweeyay magaalada Oodweyne wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdi Awdaahir Cali ayaa maanta uu si rasmi ah xariga uga jaray xarun cusub ay yeelan doonto xanaanada xoolaha gobolka Daadmareer taasoo laga hirgeliyay magaalo madaxda gobolka Daadmareer ee Oodweyne kahor intii aanu xariga ka jarin xarunta xanaanada xoolaha ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad si heer sare loo soo agaasimo sameeyay hoolka shirarka dawladda hoose magaalada Oodweyne oo uu kulamo kula qaatay maamulka gobolka ka degmada Cuqaal ururada haweenka iyo dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kulamo iyo khudbado dhaadheer kadib waxa loo kicimay goobtii xariga laga jarayay halkaas oo ay hadal ka soo jeediyeen gudoomiyaha gobolka Daadmareer Jamaal Xuseen Huure iyo duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse iyaga oo si isku mid ah uga dhawaajiyay inay ku faraxsan yihiin in maanta wasiirka xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu xariga ka jaro xaruntan xanaanada xoolaha ee gobolka Daadmareer. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaanteed waxay noo wada farxada in maanta xariga laga jarayo wasaaradda xanaanada xoolaha runtii mudane wasiir shacabka reer Oodweyne sidii ugu diyaarkiin una jecel yihiin furitaanka wasaaradda xanaanada xoolaha runtii noo fur. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. mudane wasiir aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad xariga ka jirtid maanta xaruntii xanaanada xoolaha ee gobolka Daadmareer iyada oo ay ruga yar oo kale ay jiraan haddana waxay qayb ka tahay xaruntani 15 xarumood oo laga dhisay wadanka taas oo ka tirjumaysa ballanqaadyadii xukuumaddu ay ugu ballanqaaday in ay xanaanada xoolaha la xanaaneeyo laga daaweeyo taas oo halkana adeegii u daaweyn lahaa oo dhan la keenay la dhisay meelihii lagu talaalayay runtii waa tarjumaad aad iyo aad u qiimo badan bulshada gobolka mudane wasiirka xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdi Awdaahir Cali oo isaguna bulshadii halka ku sugnayd kula hadlay waxa uu uga mahad celiyay heerka sare ahayd ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Oodweyne maalintii shalay ahayd waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu maanta ka jaro xarunta xanaanada xoolaha gobolka Daadmareer isla mar ahaantaana faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ka qabyada inuu u dhameystiri doono sida deerka weyn ee lagu wareejinayo xarunta xanaanada xoolaha iyo waliba gaariga uu ku shaqeynayay suduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha gobolka Daadmareer shacabweynaha gobolka Daadmareer waanu mahad celinaa soo dhaweynta in soo dhaweeyeen ilaa shalayto waxa kale oo farxada inaan furno maanta xaruntii xanaanada xoolaha ee degmada Oodweyne iyo gobolka Daadmareer insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan ku wareejino xaruntan geed inoogu wareejino insha Allah ta'ala waxaan keeni doonaa gaari mobile team oo halka Hargeysa ka hor lahaa halkan aan uga dhigno oo qalabaysan xarun uga gurmada dhammaan gobolada dalka iyo degmooyinka ay saameeyso gaarigaas barbari inoo yaala insha Allah ta'ala waxaan doonaynaa inuu si hawlihiisa u fayso inuu gaari u keeno suduwaha xanaanada xoolaha dhaqaatiir ka soo qalan jabiyay jaamacadda Itoobiya iyo jaamacadaha Burco iyo Sheekhnaa inuu halkan afar dhaqtar ku soo biirino shan kamida dhaqaatiir ama kaws ama tababarayaasha xirfadda xoolaha oo degmooyinka ay saameyso gaar ahaan Harasheekh iyo Khaatumo iyo Xaaji Saalax iyo degmada Oodweyne inuu shanta dhaqtar dawo la siiyo dawadaas oo ay kilkaas ay la wareegi doonaano dawada ayaguna ay ka faa'iidi doonaan kadibna dawo kale soo iibsan doonaan oo la kaabi doono marka hadda waa inakii khudbadeeni hoolkii ku soo dhamaysanay waxaanu furaynaa imika insha Allah ta'ala waxaanu furaynaa xafiiskeenii iyo hawlqabadkeenii xanaanada xoolaha wasalaam alaykum ugu dambeyntii wasiirku waxa uu si rasmi ah xariga uga jaray xarunta cusub ee xanaanada xoolaha gobolka Daadmareer barwaaqo aadan Maxamed telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Oodweyne